taliska booliska degmada Kismaayo ayaa bilaabay howlgal ka dhan ah xirashada shareerka oo ay dawladdu guud ahaan hore uga mamnuucday xirashada niqaabka ay hablaha wajiga ku qarsadaan xaalado amni awgeed. ciidamada booliska ayaa howlgalka ka bilaabay xaafadaha iyo suuqyada magaalada Kismaayo kaas oo ujeedkiisu yahay ka hortagga adeegsiga shareerka iyo absaabka oo ka qayb qaata amni darrada isla markaana ay adeegsadaan argagixisada xilliyada ay rabaan in faladimbiyeedyo ay fuliyaan. qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo ayaa bogaadiyay tallaabadaasi oo ciidamada amniga ku xaqiijinayaan isla markaana uga hortagayaan wax kasta oo ka qayb qaadan kara amni darrada. taliyaha booliska saldhigga degmada Kismaayo gaashaanle dhexe Warsame Axmed Geelle ayaa ka warbixiyay howlgalka ciidamada booliska ay ka fulinayaan magaalada Kismaayo. waxaan 4 maalmood la soo dhaafay ka wadnay howlgal magaalada Kismaayo gudaheeda howlgalkaas oo ah baacsiga iyo la dagaalanka indhar shareerka iyo afduubka iyo wixii la halmaala arintaas oo magaalada Kismaayo hore mamnuuc uga ahayd aynan dhaqan lagu aqoonina ayna mamnuucday dawladda Jubbaland wixii hadda ka horeeyay haddana aynan jirin cid fasaxday iyo meel fasaxay iyo amar dawladeed iyo amar amni meel aynan ka timaaday oo barnaamijkaas lagu amray una jirin ayaa waxay dumarkii reer Kismaayo ay caadaysteen waayadan dambe inay soo xidhaan basharkii magaalada mamnuuc ka ahaa ee loo mamnuucay xagga amni awgeed kaas oo ana aaminsanaa inuu amniga ku yahay lid amniga wuxuu lidoogu yahay Soomaaliya iyo guud ahaan Jubbaland waxaa lagala dagaalamaa niman argagixiso ah oo fidnoodayaal ah oo wadanka qasbadan ku haya sida awgeed ay isku ekeysiyaan dumarka iyo haweenka oo ay u xidhaan waxyaabo aan rag u caadadiisan ahayn sida awgeed ayaa magaalada Kismaayo laga mamnuucay bahalkaas haddana dumarka ayaa soo saxay sida awgeed ciidanka booliska dowlad gobolka Jubbaland gaar ahaan ciidanka gobolka Jubbada Hoose magaalada Kismaayo waxay ka howlgalayeen maalmahan ay ku mashquulsanayeen hawshaas 4 maalmood la soo dhaafay maalintii afraad iyo howlgal ka socda mas'uuliyiinta iyo inta badan saraakiishan ay ka howlgalayeen iyo ciidanka intuba waxaan soo qabanay in sharka faraha badan u jeedaan oo dhowr boqol xabba gaarayo oo dumarka Kismaayo ku dhex wateen magaalada. taliyaha saldhigga degmada Kismaayo gaashaanle dhexe Warsame Axmed Geelle oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa fariin u diray guud ahaan bulshada inay kala shaqeeyaan amniga magaalada iyo in tallaabo adag laga qaadi doono cidii u hogaansami weydo sharciga dalka. waxaan digniin ka bixinaynaa barnaamijkaas qofkii lagu qabto maanta wixii ka dambeeya inuu mutaysan doono sharci adag ganaax xarig intuba inuu ganaax lacageed iyo xarig intuba inuu mutaysan doono horgeyn sharcina ay imaan doonto. waxaan uga digaynaa dumarka reer Kismaayo inay ka waantoobaan barnaamijkaas iyo nashaarka qaadashadiisa kaas oo horay loo mamnuucay amnigana ku alid wixii kasto amniga lid ku ah qofkii caaleystana waxa loola dagaalami doonaa sida loola dagaalamo kuwa cadowga iyo khawaarijta amniga qof ka hormaada waa qof lid ku ah amniga wadanka magaaladan waa amni barwaaqa ka jirta nabadgelyo ka jirta horumar amni baa ka jira waxa ka jira mashruuciyo laami iyo wadooyin la wada ka jira intaas oo dhan waxay ku imaadeen amni wadooyinkan quruxda badan reer Kismaayo loo sameeyay qaarna la hagaajiyay qaarna hadda ay ku socoto mashruuciyo la faraha badan iyo waxa ka jira waxa ku imaadeen amniga hadii la xajin waayo fadqalada dhinaca laga furo in la shareer la soo qaato dumar la soo kasiyo wax badan la haleeyo ma suuragelayso mana yeelayno amnigana wixii haleynaya xalle kama nihin waxaan uga digaynaa dumarka reer Kismaayo in badan aan looga sheegay media way in badan baa looga sheegay way og yihiin inaan la ogolayn lana ogolaan doonin cidii ka amar diida amniga iyo shaqada amnigu u wado talaabo sharci laga qaadi doona ha ogaado birina iyo dhihin damba la yeelaya waa ka mamnuuc magaalada shareer loomana ogolo loomana fasixin mana loo fasixi doono qofkii inta aan ku qanacsanayn waxa waaye talaabo rasmi ah laga qaadi doona oo sharciga waafaqsan ugu dambeyntii waxaan uga mahadcelinaynaa bulshada reer Kismaayo sida ay ula shaqeeyaan amniga ee wanaagsan isku duubnida wadankan cadowga yaa ku soo duulay Soomaaliya dhanna dhibahaya kaasana anana qayb ka nahay marka waxaan qabnaa in la shaqeeyo laamaha amniga si bulshadu ay ugu noolaato nabadgelyo waxaan ka codsanaynaa mar labaad inay la shaqeeyaan ammaanka iyo laamaha amniga ee ciidanka booliska siday bulshadu u hesho horumar barwaaqo iyo baraaro dhow gaadho.